shirkadda nadaafadda ka shaqeysa ee degmada Qardho ayaa ugu baaqday shacabka degmadaasi in ay ka shaqeeyaan nadaafadda degmadaasi sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Maxamuud Cabdirasaaq. shirkadda nadaafadda bila oo ah shirkad ka shaqeysa nadaafadda magaalada Qardho lagana hirgashay bilowgii sanadka 2017 gudaha magaalada Qardho ayaa ah shirkad ka shaqeysa guud ahaan nadaafadda magaalada Qardho waxayna xafiisyo ku leedahay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. haddaba maamulaha shirkadda bila Astur Jawaase saxaafadeed ku qabatay xafiiskeeda magaalada Qardho waxay ka warantay shaqooyinka ay ka hayaan magaalada Qardho. sidoo kale maama Astur ayaa ka jawaabtay dhaliilo dhowr oo kaga yimi shacabka magaalada Qardho kuwaas oo ay muddooyinka dambe ay shirkadda kaga sheegayeen arrimo la xiriira dhanka shaqooyinka gaar ahaan waxay shacabku ku qoreen dhowr dhaliilood baraha bulshada ay isticmaalaan. haddaba waatan Astur Jawaase oo ka hadlaysa arrimo la xiriira shirkadda bila iyo shaqooyinka ay magaalada Qardho ka hayso. kambaligan wuxuu ka shaqeynayay muddo sanadkan intiisii badnayd ah inuu frentary ku shaqeynayay inuu shaqo magaalada u hayay badan wuxuu ka shaqeynayay arrimahan nadaafadda. markii aan shaqada bilownay magaaladu waxay ahayd xagga nadaafadda zero. magaalada waxa oo laakunayaasheeda oo buuxiyay qashin aad u buux dhaafiyay. waxaan ka qaadnay 354 loor oo qashin ah oo goobo kaliya aan magaalada ahayn. waxaan qabanay wax aad iyo aad macnaha loogu naaloon karo. waxaan sameynay wacyigelin, waxaan sameynay tirakoob xaafadaha oo guryo lambaris u sameynay, waxaan sameynay inaan shirkadda xafiisyo u furo, waxaan sameynay shirar kala gooni ah oo macnaha isdaba jooga. walow ay duruufo adag naga soo mareen arrintaas oo aan macnaha aan soo koobi karin. duruufaha na hor istaagan waxaa ka mid ah magaaladayada maasha Allah waxaan gelisiin weynay arrinta nadaafaddu inay nolosha qofka bini aadamka la xiriirto. annaga ma nihiin kambaligeena kambali lacag doonaya. akoonnaan u furnay, lacag baan ku shubnay, gaadiid baan u soo iibinay, ilaa still waxaan isticmaalaa lacagtayadii oo mushaharooyinka iyo kharashyada ku bixinaa. wax yar ma ahaan oo kabida maaha. cid macnaha sibood lagu siisa ama hay'ad ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama shacabkaba ha noqotee hadday xag dhaqaale ahaan lahayd iyo hadday xag macnaha sibood iyo cod ahaan lahayd kaliya waxay sameeyaan shacabka iyagu intooda badan dhaliilaa shirkadda ay qoraan. waxaa la isticmaalaa facebookyo dhaliilaa lagu qoraa. waa derbiyada laga hadlaa, dhaliil baa laga hadlayaa. qofku shaqadka uu sharaabka bahasha uu ku cabilaan uu ku sii daynaya. waxaa jira waxaan ognahay marka ay rabo magaalo in la fariisiyo marxaladda ay ku noolaan lahayd oo la maareeyo waa inay horta ka timaadaa dhinaca bulshada. haddii aysan baahi soo gudbisan dhinaca bulshadu lama wadi karo. laakiin waan u dhabar adeegnay, waana wadaynaa, waana wadi doonaa anoo ka faa'iidaysanaya baabaa dheer oo cod dheer waxaan ku qalinayaa bulshadayada. annaga lacag ma doonayn. haddaan lacag doonayna qadarka guryaha lagu soo qoray oo ha laga qaado la yiri hal qof kuma qadayn karo maalinta, kuma filaan karto. alla in la helo shidaalada bay muhiimadeedu ahayd. waxaan leenahay shaqada aan wada qabano, bulshada aan shaqada u hayno, shaqada inay nala qabtaan maarna. shirkan jiraayad ay saakin qabatay maamulaha shirkadda bila ee Astur Jawaase ayaa wuxuu ku soo beegmaya xilli muddooyinka dambe dadweynaha ku nool magaalada Qardho ay shirkadda dheelada ka qorayeen baraha bulshada. Astur ayaa saakin kaga hadashay shirkadda jiraayad sida aad daawaneyseen arrimo la xiriira shirkadda iyo shaqooyinka ay ka hayaan magaalada Qardho ee la xiriira dhanka nadaafadda. Maxamed Fantastic, raadiyaha TV-ga maamul goboleedka Jubbaland magaalada Qardho.